حرمته لأيساق شكوني فروقاتي وصبابي لو صار ما فحي بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan caawa idiin soo duubayaa programkeeni ama barnaamijkeeni la magac baxay MQ oo aan la magac baxay ama usoo gaabay MQ lana magac baxay maxaynu qabsanay maxaase qadiyaad inaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta joognaba waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin. programku si wacan buu u socdaa oo aan u daadahaynaya una wadaa habeen kastana waxaan go'aan ku qaatay ama maalin kasta waqti kastaba inaan idiin soo galo ama aan idiin soo duubo in ku saabsan sidii aan uga bixi lahayn aqoon la'aanta ama jaahilnimada. aragtidayda aan rabo insha Allah inaan idinka dhiibto ama wixii aan maskaxda ku hayo aan idinla wadaago. horta maasha Allah sanad wanaagsan baan leenahay, sanad khayr qaba, ilaahay naga dhigo sanadkii cusbaa muslimka xaragta inoo bilaabmay. ilaahay waxaan ka baryaa inuu khayrkeedina siiyo, sharkeedina inaga ilaaliyo maasha Allah. waxaan kaloo maasha Allah aan leeyahay roob ayaa inoo da'ay Somaliland Hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 2021 sagaalkii bishii 8aad. alxamdulillaah rabbil caalamiin. si wacan ayaan u faraxsanahay oo aan u wada faraxsanay dhammaan wixii qurba joogga maadaama wadankii roob wanaagsan ka da'ay. ilaahayna waxaan ka baryayaa ilaahay inooga dhigo mid khayr qaba oo dhagarta iyo dhibaatada inaga ilaaliya. waxaan rajaynayaa waxa inaga baxay oo roobka da'aya raxmadiisu ay tahay waxaan ku yiri codadii iyo xumaantii iyo ummadda isugu dhex jirtay reer Somaliland ayaa ilaahay inaga masaxay oo inaga mayro roob khayr qaba. ilaahay inoo keen roobkaasna waxaan ka baryaa inuu inaga qaadsiiyo daadka si uu qaado oo kale waxa la wixii cudurra cudada waxaa wixii dhibaato ah ee ummadda dhex gashay ilaahay naga saaro. Somaliland ha israacdo ayaan leeyahay soo duceynayaa. waxaan kaloo doonayaa inaan maayarada usoo jeediyo maadaama programkii maayaradu inoo socday oo aynaan dhamaystirin. ka faa'iidaysta roobkan da'ay, xashiishkii wuu ururinayaa, wuu idinka qaadayaa dhirta beera meel kasta oo deegaanadina dhirta noogu beera. waayo waxa aan ogahay oo aan idiin soo ogaanay ama aynu ognahayba in badan oo caqli leeyahay ama aqoon leh oo wax baratay in roobku uu hawadu ay qurxiso, dhirtu ay qurxiso oo dhirtu ay u tahay waxyaabo badan oo jawiga inoo qurxinayso haddii aynu dhirta beerno. dhirta inoo badiya weliba quraca, galoolka, mirimirida, baxra saafiyada, dhirtan qurxiya dhulka oo kale inoo beera. waxaan maayarada ka codsanaya maadaama oo maanta roobabka bilaabmay oo roob inoo da'ay maalmahana uu yara da'ayay in aydinka faa'iidaysataan xashiishka iyo wadooyinka iyo meelba wuu idiin maydhayaa qurxista. sidaas maanta u bilowdeen 2021 u bilowdeen hadaatiin golaha deegaanka inaad shaqooyinkiina qabsataan. waan ugu dhiirigelinaynaa inaa idinku intii arkaysaan ee aragtidiina ah inta idiin dhimanna waanu idinla qayb qaadanaynaa. waxaan rabnaa inaanu idiin soo jeedino shaqsiyan khaasatan aniga inaan idiin soo jeediyo oo arrimo badan oo kala qodobaysan oon rabo maalinba mid inaan idiin soo bandhigo. yacni dhirta inoo beera oo kaga faa'iidaysta roobkan da'aya. waxaan kaloo rabaa in aydin u danaysaan bulshadeena reer miyiga ah oo aad u faa'iidaysaan oo meelaha deegaanka ee uu u badan yahay xooluhu inoogu badan yihiin inaad uga samaysaan ceelal iyo balliyo waaweyn
oo u dhigtaan bacihii una oodaan u xidhaan si xayawaanka iyo xoolaha iyo dadkaba uu uga badbaado. balliga markaa u qodaan weyn u ooda oo ugu ooda taarka ugu wareejiya si xoolaha laga waraabiyo. waxaan idiin rajeynayaa insha allah billahi kariim inaa ra'yigaas maskaxdeena uu ku jiro oo aad kaga faa'iidaysanaysaan. waayo abaar maynaan aragnin haddaynu roobkaa inoo da-ayo iyo raxmadda inoo da-aysa aynu kaydsanno. marka maayarada waxaan halkan uga soo jeedinayaa bliis aragtida ayaynu istusaynaa iyo maxaa yacnihii aynu qabsanayo maxaa qabiyaha. marka waxay naga qabiyaa un anigu ogahay horta number 1 dhirta inaynu ilaashano oo beerno. waayo roobku wuxuu soo eegtaa ama daruurta ku timaada hawada dhirta badan. markaa dhir badan inoo beera ka faa'iidaysta roobkan inoo da-ay. dhir badan ka beera deegaanada iyo magaalooyinka. wadooyin waaweyn oo sameeya yacnihii qurxinta magaalada ka qayb qaata. imika waa wadaan roobkaa da-aya kaga faa'iidaysta. xoolahana iyo meelaha deegaamada reer miyiga oo kale si abaarta aynu ilaahay subxaana wataala naga ilaaliyo abaarta aynu uga foojignaano waa inaynu kayd yeelanno. kaydkaas oo aan leeyahay kaydka biyaha. kaydka biyuhu wuxuu ku yimaadaa matal inaynu samaysano riigag waaweyn, inaynu samaysano baliyo waaweyn, inaynu samaysano ceelal, inaynu yacnihii dee kasii fekerno waxyaabaha inugu iman doono ama inugu soo socda. taasina waxa weeye muhiim aan rabo inaan la qaato deegaamada dadka ku shaqada leh. waxaana ku shaqa leh xildhibaanadii lasoo doortay ee xildhibaanada deegaanka sida xildhibaanada maayarka iyo xildhibaanada kale ee la shaqaynaya lala soo doortay. markaa taas ayaan idiin soo jeedinayaa ilma adeerayaal. waxaa kaloo aan leeyahay nabad baynu la haysanaa. 30 sano ayaynu jirsanay 31 sano ayaa waxaan ku uri maanta dee inoo dhammaanaya. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waa in aynu hadda wixii ka dambeeya aqoonta, tacliinta, caafimaadka, ciidamada booliska, militariga, maryuhu yacnihii hawada oo kale inaynu ilaashano iyo jawigu siduu yahay kolba oo aynu jawiyada la jaan qaadno. ama matalan dee halkaynu ka nidhaahno inagu ma garanaysaa xagaaga oo kale, guga oo kale, dayrta oo kale inaynu yeelano waqti kastaba waxa uu leeyahay aynu ugu fooftagno si aynu yacnihii nolosheenu kor ugu kacdo. mideeda kale waxaan leeyahay caruurta yaryar waxaan ku diinta bara inoogu xareeya malcaamadaha ku dara. weliba waxaa mas-uuliyad ga saaran yahay qaybta waxbarashada oo kale wuu ka saaran yahay deegaanka oo kale matalan maayarada iyo dee xubnahan loo soo doortay xildhibaanada deegaamada waxay naga saaraan tacliintii aqoonta. number 1 diinteena inaynu baahino. number 2 tacliinta maadiga ah iyadana inaynu baahino. insha allah billahi ilaahayna waxaan ka baryay subxaana watacaala inuu idin garab galo, idin caawiyo caqli iyo maskaxba. marka aad baan idin salaamaya kulligii. caawa intaasaan idinkaga baxayaa. jarankana waa inaad la socotaan. waayo haddaa matalan taabataan meeshan la leeyahay yani iskaraabka la leeyahay qofku marku taabto oo kale waxaa idiin soo gelaya wixii aan markaa qabtay oo kale. haddaan maanta oo kale wax duaan bilo kale oo idin imanaya markaa kaasna ku ogaada idinka ay dan idin tahay. aniga dan ima idinkay dan idin tahay. anigu qof waxaan rabaa doonaysa inaan horo u soconno ra'yigii aydhiyadana idingala qayb qaadana insha allah billahi kariim. waayo haddaanan dadkayaga ra'yiga la qaybsan hadhowto ilaahay wuu nala xisaabtamaya. wuxuu odhanayaa caqligan idgu jir maxaa dadka waxugu kordhin weydeen. waayo ilaahay mar waa kala hadlaya eele ina macal caqliyiin waa in ilaahay sameeyey waa caqli leh oo ummadda in caqliyan caqli lahayn iyo in caqligu ku yaryaryahay baa jirta. marka ina macal caqliyiinta uu ilaahay la hadlayo ma odhan dadkoo dhan baan la hadlaya. dad buu la hadlay khaasa. waxaan rajaynaynaa inaynu noqono dad wada caqli leh oo waxaan ku fikradahooda dhiibanaya. barnaamijkana cid kasta oo danaynaysa waan kusoo casuumaynaa. telefoonka laygala xiriiri karo na hoos ayaan idinka soo qorayaa maalinkan maantaan idiin bilaabaya. barnaamijka qof kasta oo danaynaya telefoonka ha soo garaaco hana ila soo xiriiro si aan uga qayb geliyo. zoom wax la yidhahdaa jira oo dadka lagula xiriiri karo
oo haddii aad hadafaysid horumara oo aynu ka hadlayno leenahay waa wax inaga maqnaa sida maxaynu qabsanay oo maxaase qabyo ah aynu u buuxin lahayn telefoonkaa soo garaaca emailkaygana waa idiin soo qoraya la xidhiidha ummadeenna inta caqliga lihi xasiise ra'yi aqoon iyo aragti fog aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heestana kusoo dhawaada madaxweyneheenni baa la salaamayaa ilaahay ha garab galo xaqana allah tuso isaga iyo dhammaan inta la shaqaysee la socota sida wasiiradoo kale waa muhiim inaynu isliihi gelino maasha allah anu aad baan u jecelahay oo aan u daawadaa waayo dila igasha nabadda iyo nimcada inoo taalla alxamdulilah ilaahayna nagu guuleeyey madaxweyneheenni baa laga soo dhaweynaya insha allah ربنا